دولتي فترة الكايسومالي وسيركي أهرمها جدها أي عاو قلبت وحكونا واق مامل قبلت كي كفر قلب دمانتيس دولتي فترة الكاو قعنته وجرا يا لقى قبسنا يا أول كفر قلب ما عدو قعنته وجرت شعب صومالي ما أهم مياه dadkii ay gacanta ugu jirtay yaa laga qabsanaya koonfur galbeed muddo koonfur galbeed gacanta Soomaaliya ka maqneed masanin isgadiyay oo siyaasadii isku gadiyay ayaa laga qabanaya anigu waa waxyaalahan fahmi waayay siyaasadii Soomaaliya meel xun ay ka xiranaysa xasan sheekh waxa la ciyaar banooni caalamiye oo kii Yurubna ka daran kuwii meel walba ka socdo caalamkana ka daran oo tikataaka la yiraahdo oo markii ugu dambeysay penalty laga dhalin rabo waa goosha anaa dhalinaya adigu dhalin maysid wax la yiraahdo xasan sheekh loo isticmaal intii ka horeysana waa lala jooga waa cayileen lacagu siiye qaaradu uga bixiye inta soo bilyan oo dollar u dhiibaayay ciidamada lagu tababaranayay adduunyo dhan lagu kala fariisanayay waa lagu sii gobol xaaranayay telefoonada labada dhagooda lagu kalaayay midna xasan sheekh la hadlay midna dawladaha kale la hadlay aqalka u dambeeyay ku soo fariisanayay soo dhawaada lafta gareen ninka la yiraahdo dagaalami doona xasan sheekh maxamuud ma guulaysan doona halkaasaan caawid u istaagina dawladii federaalka ee Soomaaliya ninka hadlay galabta waa wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed umuusa dhalan xasan sheekhna asxaan u sameyn maayo baashuna qabiilay ku dhisantaa wali qabiilkiisina halkaasay istaageen waxay dhaheen xasan magacyo badan ay u bixiyeen xasan wabiir la shaqeyn mayna dhaheen waa qabiilku asoo ka soo jeedo wasiirka arrimaha gudaha la shaqeyn mayna dhaheen waa kaligiisu la jooga xasan magacii halkaas kaligiisu ku jooga waxa uu meesha ku hayo male inuu lafta gareen iyo xasan sheekh isku soo oo caaw meel xun oo kala gaarsiiyo asaga dana ugu jirta ilaahow laba dibi isku jabi midkii adiga dhulka dhaca baa la jirayna ama midkii awood dabato waa abdicas lafta gareen ma dagaalami doona maadaama wasiirka arrimaha gudaha uu yiri maamul goboleedka koonfur galbeed oo dhan dawladda federaalka ee Soomaaliya gacanta ugu jirta oo ay gacanta ugu jirta maanta ka bacdina lafta gareen waxa loogu yeerayaa madaxweynihii hore ee koonfur galbeed loogu yeerayaa maadaama uu yiri lafta gareen awood ma heli doona xasan sheekh maxamuud safarku u baxay oo Itoobiya halkuu salka ku haya muxuu yahay waxa soo dhana caawid dul istaagina barnaamijka sheer gareen waa xil gudaday oo ayaantan ka maqna dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubarak ciid wali waa lagu jiraa ilaahay subxaanahu wa ta'aala anaga aqbalo soonka aan soo ramadan soo soonnay bisha soddonka ah dadka wali sooman oo aan wali afurno 6 bari soomay wada caana waxaan leeyahay ilaahay adinkana maaragtay ajirkeeda hayna siiyo iga horwari lafta gareen wuu dagaalamaya anaa kuu sheegaya caaw waana jamhad RRN waxbuu ka aas ilaa iyo RRN dagaal ku jira halkuu geli doona aqrigiisa muxuu xubsiiban doona aqrigiisa wuxuu xubsibanayaa idin sheegaya caaw lafta gareen aqrigiisa hadii laga awood bato qawaaristu u galaya haddaan kuu sheegaya wana la shaqeeya qawaarista siyaasi aan qawaarista la shaqeeyno ma jiro hadda idin sheegaya xasan sheekh xataa la shaqeeya qawaarista nin aan la shaqeeyay qawaarista ma jiro waa shirkad lagu argoosto oo qof walbo xanaaqsan oo u gal waaya qawaarista caawa kuu sheegaya waa sirta ka qarsoon oo ummadda Soomaaliyeed dhanna ka qarsoon lafta gareen uu dagaalamaya waana jamhad ma laga awood badin doona maadaama xudur laga haysto buur laga haysto qansax dheer laga haysto bay dhaba qaarkeed lala joogo banaanka ciidamo joogan way ku adkaanaysaa lafta gareen taageero Itoobiya haduu waayo oo xasan sheekh maxamuud caawa Addis Ababa jooga oo Abi Ahmed ka soo dhameystay kamana soo dhameysan kara Abi Ahmed uu ku ciyaaraya xasan sheekh ruuxiisa banoon lagu dheelaya waa guushiisa lafta gareen iyo xasan sheekh oo isku dhaca oo hadba meel u wareeganaya oo hadba meel u dhacaya waa guushiisa ninka la yiraahdo Abi Ahmed xasan sheekh maxamuudna safar Itoobiya oo ka dhamaan waayay halkaas uu ku sii qulqulaya Abi Ahmed aadan ugu xumaan maanta inuu xasan sheekh maxamuud u duulo wiil yar oo saqiira oo siyaasadda la yaqaan wuxuu ka yahay caalamka oo saqiir siyaasadeeda inuu odaygi weynaa oo professorka nagiya taasoo diyaaradood oo ku qasaariyo Abi Ahmed horta aad baan uga bixinay aan uga xumaan mana ahan inuu u duulo ma ahayn arrimo kale siyaasadeed uma aadin Abi Ahmed inta soo wuxuu yiri adiga lafta garaana idin wada hadal siinaya imaad waqtigiisa ku dhameeyaa leeyahay xasan sheekh waqti uga dhamee lafta gareen xasan sheekh iyo rag badan oo lafta gareen lamida adaa cayiliyay adaa intaas mar hore hadaad la dagaalaysa dagaal kaaga furnaa
إنه سان سمينا يقفل الصومالية وأوجا لفت جرينا وإن فرماتشو تلافن فرماتشو نكون شقينا يا أنا عاو كل شيء وأنا سياستك لقدون كلا عرسي قال لي هذا أدوق بس حار ماذا سمين نكي إن فرماتشها واجي ساق روح لحسن الشيخ محمود وودوجد سيدي أنا السياسة اللي جوجر حيا والجولك الكلية هذا على الجولات هوريا عاورة والجوجر حيا ماشي وروح ماذا كده كنيسة دولته هدي لفتكرين كم قيهاي بدلان كم قنتهاي إن أي كم قنتهاي شوبلان إن دولته سوي كنيسة سياسيين تي ووينا وحسبك حسن الشيخ محمود تشيس بيلا ديجري قاركود أي كلا تجين سيد عبد الرحمن أدواء ولا شيء جيو إنه حسبك كتجي نكال يسمبلوا شو حالة سوقر فيسبوك شو سوقري إنه حسبك أو وحبل لو وده هانكرين سان الجود السعون كرين وهرون الشيء يسمبلوا شيء أنا عم بقول عناية نباست عناية وهل ما يجير سمبلوا شو وهرو عناية أو شيء العكتير تاد أو هيستنا وكذا ما تاد أنا عم بقول عناية رجع باست عنانا كومتشلو وأنا وهرون صار شيء سياسة دي مال هناك كدقنيسة حسن الشيخ محمود دولة نمدها الكل عادي دونا ما هو حلا عادي دونا دولة نمدها بربر يدولة الصومالية لن أضطر كرتجان مسؤولين نبضونا أو عقل بدنا سياسي ونقون دونا أو مدي الصومالية سيد كل يوم علين دونا مسه ودك الدجال وقلين دونا بروفيسور كديجو فرع لقلين دونا ضدك الرماة السياسة الصادالية لما مسري وبدية حسن الشيخ go-aanku gaaray ka laaban maayo inuu dagaal galo oo wax jafo ay u badanta caawan marka talo soo jeedinaya odaga xasan sheekh hadday fiicantahay ii sheer garay adeero xasan sheekh oo talo fiican ku siinaya anuu naqshadeeyaa la yiraahdaa naqshadeeye iyo maan dooriye iyo ma maqasheen oo shuuto maxkamadiisa ma ka maqasheen naqshadeeyaa la yiraahdaa habeen dhawadan waxaa aray dawladda koonfur galbeed bara waa loo wareejinayaa dawladda federaalka Soomaaliya way iga qaadatay naqshadaas way iga heshay haddana براو الله وذا السعودة نقشد داس أنا إيجا حد أنا تدبها من مستوبنها من كهران سيج شيء وإيجا حدين براو دورش الوقوع بنا يهالكاس الله يا عيا وات الله وذا هديرتان عاون نقشد كلام وذا يولدنا هالكان يفرد ذا هوس نقشد يعاون نقشد دو وتو حواي حلو بنتدي وهو ذا إن حسن شيقو لبا متكهربا نيو أما تكلم ونن أول للنقو ودتك أسحانها أصلاً قلوا والبا كبها الله ظلمه أما ضدك ماشى كتب تقول عليه وحرنا لباس مد آن أهين أو الدول النمد أكو كيري كرتد ما شرت ماشى بريو إسكدر وري هذا عيدا هلا قاض هذا عيدا ديار هلا صار والله بالله تالله وكفش الميسا ما عجانا كله مية لبا الدول الدم تكو كيري كرتا ورنيو هوبك فصح وريها كويست رجع ريدي كرنا ودي فصح محكمة السلطان حر اللي هي كقال لي أنكم مرة من إيران دعوة مركل الإسباب شو الإسكو بابي اللي هي قال لي أنا مرة ما ماشي أنك دعوة إن الإسرام صدق الربع والله إسرام سنية قرت التب قردت كسكو فصح تولد نماذج تاسك وإيمان كرتا نن أن تولد نماذج ديك وقلنا أما أن ضب عجها لقلنا ضب عجها لقلنا تولد نماذج مكيري كراحس الشيخ محمود أما ضدك فصح